assalaamu calaykum asxaabay soo dhowaada. magacaygu waa Cabdirasaaq Daahdaah. muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa walaalihii Banu Muusa iyo siday uga qayb qaateen horumarinta sayniska. saddexda walaal ee Banu Muusa waxay noolaayeen casrigii dahabiga ahaa ee ilbaxnimada Islaamka ama qarnigii 9aad. magacyadooda waxay ahaayeen Maxamed ibnu Muusa ibnu Shaakir oo ahaa kan ugu weyn, Axmed ibnu Muusa ibnu Shaakir oo ahaa kan ku xigo, iyo Alxasan ibnu Muusa ibnu Shaakir oo ahaa kan ugu yar. waxay ahaayeen aqoon-yahano sayniska aad ugu xeel dheeraa oo magaalada Baqdaad ka soo jeedeen, waxayna kala yaqaaneen cilmiga xidigiska, makaanikada iyo xisaabta. Maxamed wuxuu takhasuskiisu ahaa cilmiga xidigaha, xisaabta iyo siyaasadda. Axmedna wuxuu takhasuskiisu ahaa makaanikada, halka Alxasan uu takhasuskiisu ahaa xisaabaadka. aabbahooda Muusa ibnu Shaakir waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa xidigsiyahan caan ah oo ay saaxiibo dhow ahaayeen khaliifkii dowladdii Cabbaasiyiinta ee magaciisu ahaa Al-Ma'muun. geeridii Muusa ibnu Shaakir kadib, walaalihii waxay dhakhtaro gaar ah u noqdeen Al-Ma'muun, wuxuuna aad u jeclaa inay walaalaha Banu Muusa ay noqdaan aqoon-yahano sayniska ku xeel dheer, maadaama uu arkay inay aad u xiseeyaan barashada sayniska. wuxuuna geeyey macadka Baytulxikma, kaasoo ahaa macadkii ugu weynaa wakhtigaasi ee sayniska laga barto. markii ay dhammeeyeen waxbarashadooda, Banu Muusa waxay bilaabeen inay horumariyaan xirfadda ay u leeyihiin makaanikada, xidigiska iyo xisaabta. waxay kaloo bilaabeen inay turjumaan buugaagtii Giriigga oo ku qornaayeen xisaabta, xidigiska iyo dhammaan noocyada kala duwan ee sayniska. walaalaha Banu Muusa waxay ahaayeen turjumaanadii ugu cansanaayeen uguna xirfadda wanaagsanaa qarnigii 9aad ee magaalada Baqdaad ku noolaayeen. waxay soo saareen mashiinno badan oo ay ka mid yihiin kuwo keligooda iswada ama otomaatig ah. sidoo kale waxay qoreen in ka badan 20 buug oo ku saabsan sayniska. buugaagtooda ugu caansan oo ay ka qoreen sayniska waxaa lagu magacaabaa Kitaabul Xiyal, oo ah buug ay kaga hadleen 100 nooc oo makaanikada ku saabsan iyo sida loo isticmaalo, iyo buugga Kitaabu Qiyaasul Ashkaal Almusadixa Walkurawiya, kuwaasoo si weyn caan u noqdeen kadib markii turjumihii caanka ahaa ee Gerard of Cremona uu afafka Laatiiniga u turjumay. walaalaha Banu Muusa waxaa lagu xasuustaa mashiinadii ay dunida ku soo kordhiyeen oo ay soo saareen, iyo buugaagtii ay ka qoreen sayniska, iyo kuwii ay fasireen oo dad badani ay ka faa'iidaysteen. daawade, muuqaalkan haddaad ka heshay like saar, sabskraibna ha ka ilaawin. wassalaamu calaykum.